muhiim dadkan barafka dhacaya baraf waa waqti baraf ah dhulkuna waa dhulka barafleyda haweeney qofka meeshan aan maadaama inagu dhulka nimi dhul qorax leh dhul aan baraf lahayn way adag tahay inaan kula qabsano meelo saas barafka u yahay waan kala garanayn dadku nool yihiin kale guryahoodii markaa kuwa inta barafka ka sareysa marba saan bil guriga ku soo dumaa marka ka waran haddii saacad ama 2 saacadood qofku uu bartaa joogi lahaa soo noqon lahaa barafka du joogi lahaa uu kaleeysan lahaa ninka ma soo kartid saacad sheegtay 30 daqiiqo soconayso oo jirkaagu shaqeynayo dhidideyso dhul waaweyn xiran tahay dhul badan xiran tahay kabo waaweyn xiran tahay ay haddana adag tahay inaad aad dhex socoto meel aad ka baxdo meel gashaan lagu talagalay waqti dheer aan socon haddii dharkaagu laakiin dee iyo oo adag yahay kabaha waa yihiin tabii barafka iyo waxa weeye kulli xayawaano ku nool barafka way jiraan kuwaas ma dhan noqonaysaa waxa xayawaanada laga sameeyaa dad xirato hargahooda iyo xooda laga yaabaa malaan qabow iska xajiso in xooga ah waxa soo qabow ka cadiyaan in badan laakiin ma kula tahay inagu oo barafkan ku nool dadkeeni wadankeena soo barafka ka daa say xaaladoodu noqon lahayd laba saaq dhigo waxaan is iri laba mid in ilaahay irsaaqad meel kale naga soo gelin lahayo ilaahay inoo barafkaas waxaan iska xajino lacag iyo shidaal iyo nooc walba ilaahay nafsiyo electronic ma jabo raqiis noqdo guryahana dee kuleel soo wada geliyo dee aan cid faqiir aan jirin qof kasta gurigiisa kuleel lagu jiro kuleelku u shaqeynayo طبعا taas waa lagu noolaan kari lahaa laakiin xaaladda aynu xilligan ku suganahay ilaahay barafaynu u keenay malan wayo dad markii hore dadkan 3 bilood bay ayay wax beertaan 3 bilood ay meelaha qaar wax beertaan qaar baa ka yara badan laakiin aad isku calcalis adigu horta waa dad 6 bilood wax ka badan haysan marka haddii ay 3 bilood wax ka soo saarayaan oo ay 3 bilood wax ku beeraan deena waxaan maraynayaa 12 bilood baan wax fiican ku beeri weyne 3 bilood inaan baba xagga u jeesaneenba 3 bilood ba xagga u jeesaneen marka halkan kulli in kasta iyo qof kasta duruuf kasta markay jirto muddo socoto muddo ay socoto ay adkaato qof dadku bini'aadanka ay u fikiraa waxba isku dayaa maxaad kaga baxdaa waxaan kulli dee ma ka buuxinayo iskaxdeenu waqti dheer intay dadka kale 200 sano 300 sano ay maxay maskaxda shaqeynaysaa 600 sano ku shaqeynaysaa laakiin qofku markuu ay duruuf iyo wax soo hortaagaan waxaan sidee waad kaga baxdaan xaaladdan isku jirto marka noloshoodii hore iyo qudooda dadka waxay ahaayeen dadka miyiga iskaga nool iska ugaarsatada dharkooda hargaha yihiin de aan noloshan de imka ay ku nool yihiin aan ku noolayn de noloshan waqti dheer bay soo geliyeen fikrad dheer bay soo geliyeen
tii iyagoo soo geliyay markaa annagii aanu kula qaybsanaynaay oo dee ama dadkii yimi dee ka dambeeyey ay leeyihiin dee yurub ama waddamada reer galbeedku oo waddamo qaniya ama wax haysta iyagoo dee ilaahay ogaa bartay kasoo bilaabay iyagoo qudhooda xaaladooda marka hore iyagoo qudhooda meel adag soo martay marka waxaweye cabdi haybalambad baa la ureystay wala cabdi haybalambada baryahan waa lagu waayay xaggaad joogtay xaggaad tagtay wuxuu waxaa joogaa meelaha kanoo 6 surwaal iyo 6 jaakadood iyo kabo waaweyn iyo koofiyad iyo hoggaano qortaa laga xidhaa buuri wax naga dhiman oo keliya oo qofkana kaxayn lahaa buuri marka wallaahi waa runtii saa markaad u eegto qofku subaxdii markuu soo shaqo tag markuu isla uu labiso uu eego dibadda ama uu jawiga eego dhaxanta dhacaysa shandad inuu soo guriyo shandad dhan inuu qaadayo meel uu tegayo markuu labisanayo daarkasa 2 iyo 3 sharmaad iyo 4 sharmaad baan ku filan oo isbuuxinaya saxarka si soo markii soo dhaxanta isaga nuglaa oo intii dadka kale xiranayeen walba iyagoo dadkii hore xadaaf xiranayeen isagoo kasii xag jiro marka inta aan lugeeyay imika 7 daqiiqo yani ku fiidiyowga duubay kala duwan kuwa socdaan kasta marka dambeeyana kasii badanaya jeelkeeda horta inta dabadda inta aad marayso dhaxan waa dareemaysaa qasab dhaxan waa dareemaysaa in dhaxan jirto laakiin markaad guriga gasho haddii lagu weydiiyo maanta dhaxan miyaa kuleel miyaa waqtigii samarka miyaa lagu jiraa winter miyaa lagu jiraa ma kala garanaysid haddii aad guriga ku jirto waayo sababta gurigii waa kuleela laakiin halkaan marka loo soo baxaa la kala baxaya qaar baan socon karay ku siibanaya soo xamaana kamarada idan karo in caadi wax looga dhaxar laga marka insha Allah ba nagu waxaan ka nimay hanfi malan dhulkeenu inaga halayne Soomaali afiya kulaliya barafna dhulkeenu ka kun eegina markaa bal halka inaga fikradeen inaan dhigtana waxaan ka baxnaa horta waxaan ka fikirnaa san kulal kaga baxaan san baraf kaga baxaan maya san shiid kaga baxaan ama basaaradda taas ay markaa inaga fikradeen ay tahay sida qabiil uga baxaan fikradeen waa taas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaan baan ugu talagalay in yaro way iska fiican tahay in ishaad waxyaabo kala duwan aragto iyo waxyaabo kala duwan maqasho marka inaad iska daawataan inta barafkaas iska daawataan in yani dad nolosha ku jira oo nolosha adag ku jira ay jiraan ayaan baa ugu waday